أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. بقرة سورة لغمة عابي مدنية المدينة كسود دكتي وآياتها إذهادنا 286 آية لو بقول إيو 6 آيادود وي لو بقول 6 والي هذا سورة نوحا كلي نغنيسا 6 إيو بقول إيو 22 كلمة أي نغنيسا وحين نغنيسا 25 iyo 500 oo xaraf ay noqonaysaa suuradan aynu meeshan ka gelayno oo suuradii labaad oo quraanka ah. waxaanu soo gaarnay 10keeni 14 annaga oo faatixadii ku soo dhex jirnay. haatan waxaanu bilaabaynaa halka kan suuradii labaad oo quraanka kamida balse wax yar oo nubda ah oo markaasi noogu harsanay suuratul faatiha. waxaa kamid aheeday faatixadii markaanu dhamayno ama faatixada markii la akhriyo waxaa la yiraahdaa aamiin ayaa la yiraahdaa ayadoo markaasi ducada ugu dambaysa markaasi loo aaminsanayo. maxaa yeelay waxaanu soo marnay qaybta saddexaad oo faatixada ugu dambaysa inay duco ay tahay. ducada markii la dhameeyo qofku haduu yahay qof oo kaligiisa iyo hadii waxa weeye jamaaco ay yihiin oo salaad ay dukanayaan iyo hadii waxa weeye qof qaari oo akhrinaya markaasi oo ka maqlo in markaasi intaas bal doonayo in aamiin la yiraahdo. aamiintaasina waxa weeye sunno ay tahay oo aysan waajib ahaynin. lafdigan hadaba marka aamiin muttafaq waxa lagu yahay faatixada kamid maahan quraankana kamid maahan qadcan weeye bal in la yimaado ayaa la sunneeyaa sidaan hore u sheegnay. qofka faatixada akhrinaya hadduu kaligiis yahay iyo hadduu qeyrkiis la jiro ayadoo markaasi laga faslihayo sagta la dhiifa lala imaanayo wala dhaliin markii la yiraahdo sagta lala imaanayo wax yar la aamusayo aamiin la leeyahay si loo kala saaro wixii quraana iyo waxaan quraan ahayn loo kala saaro. sagtooyinka meesha salaada la yimaado sagtaatu salaati 6 culimadii fuqahada ahaydayba waa ay ka shaqeeyeen. safiinada ayaa markaas ay ku taalaho safiinatu salaada loo bilaabo dadka koow fiqiga looga bilaabo ayaa laga helayaa. marka qofku markuu akhriyo sagta ayuu la imaanayaa la dhiifo ah markaas ayuu wuxuu leeyahay ka bacdi aamiin ayuu leeyahay. haddii uu imaam yahana sidaas oo kale weeye dadka ma'muumiintaane ayagana imaamkay la aaminsanayaan sida xadiiska nabiga kaleey salaam ay u haleelaano qofkii markaasi aamintiisu aaminta imaamka ay waafaqdo ma waxa weeye qofka aamintiisu aaminta malaa'ikta ay waafaqdo ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ajiibaya. malaa'igtuna waxay la aaminsanayaan imaamkay la aaminsanayaan. salaada hadii imaam ay leedahay imaamka markuu wala dhaliin oo yiraahdo bacda sagta la dhiifa ayuu wuxuu dhahayaa aamiin ayuu leeyahay. marka aamintaas ayaa malaa'igtuna la aaminsanaysaa. wax badan waxaa dhaca
dadka jamac markay isugu yimaadaan sida masaajida iyo meelaha kaleba salaada la dukanayo dadka caamada ah waxay u badan yihiin wala dhaliin liintaas asoon sii gaarin imaamki aamiin in la leeyahay marka waxa weeye aamiintii malaa'igta waafaqi mayso taas marka waxay noqonaysaa mid lagu khasaaray noqonaysaa waxba faa'iido laga heli maayo waxaa la rabaa inay dadku imaamka markuu hamsada uu bilaabo inay markaas ayaguna aamiinta la bilaabaan rabaa si malaa'igta iyo ayaga aamiintooda hal mar ay isula dhacdo laga hormaray u badan tahay hadda laakiin taas jahli waayo marka hadda aamiinka lafdigaas aamiin faatixadana ka mid maahan qur-aankana ka mid maahan laakiin in lala yimaado waa la suneeyaa liqaari'i lfaatixati qofka faatixada akrinaya mafsuulatan minhaa bisaktatin si waxaa weeye loo kala saaro wixii qur-aana iyo waxaan qur-aan ahayn loo kala saaro saas weeye markaasi aamiintu marka waa ismu ficil weeye sida saxiixa aamiin allaahuma sajib waaye ilaahayow ajiib ducadayna waaye oo mabniun cala alfatxati ah waxaa bannaan marka aamiin in hamsadaas mad la saaro aamiin la jiido iyo in la qasriyo labadaas waa bannaanta oo amiin la yidhaahdo iyo aamiin in la jiido waa bannaanta culamada bacdiha waxay dhaheen aamiintu waaba ismu min asmaa illaahi tacaala asmaada ilaahi ka mid tahay oo macnaha markaas maxay noqonaysaa yaa aamiin in la yidhaha markaas oo ilaahay loo naadinayo ay ka dhigan tahay dheheen laakiin sida hore ayaa raajixa marka sida hore ayaa raajixa saas hadda markaasi wax lagu kalsoon yahay maaha marka aamiintaanu waxay ka mid tahay khusuusiyaadka ummaddan ummatul maxameda ayay khaas ku tahay baa layidhi axad ayaga ka horreeya lama siinin ilaa maa kaana min muusa wa haaruun ayaa la yidhaahdaa nabi muuse iyo haaruun wixii ka ahaada mooye xayla xadiis ayaa soo arooray ah in allaha acdaa ummatii halaasan ilaahay ummadayda 3 ayuu siiyey lam tucda axadan qablahum axad ayaga ka horreeya aan la siinin waa assalaamta oo taxiyatu ahliljanna filjanna ah iyo sufuufu lmalaa'ika malaa'igta sufuufteeda iyo aamiinta weeye sufuufta salaada marka loo safanayo waa towdha rasuulka calayhi salaatu wasalaam alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu ilaa maa kaana min muusa wa haaruun ilaa wixii nabi muuse iyo haaruun ka dhacay mooyaane oo macnuhuna ay tahay nabi muuse wuxuu habaaray fircoon haddii ilaahay yidhahdo suuratu yuunus aan ugu tegi doonaa aamiinna haaruunna waa ka aaminiyey waa towdha ilaahay subxaanahu watacaala qad ujiiba dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yu'minuun marka hadda maqaalada haaruun lama sheegin markaasaa waxaa lagu magacaabay daaci ayaa lagu magacaabay sayidina cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu waxau dhahay aamiintaanu khaatimu rabbilcaalamiin waayu dhahay oo waxa weeye markaasi haddii waxa weeye ducada la khatimo ducada markii la ducaysto oo la ducaysanayo ayaa aamiin la leeyahay marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa addoomankiisa ducadooda ku khatimay ama waxa weeye faatixada ayaa lagu khatimayaa faatixada hadda qeybta ugu dambaysa ducay ahaaday waxa aamiintan keenane waxa weeye ducadaas ayaa la aaminsanayaa asar waxaa soo aroora aamiintaanu waa shaabadoo kale oo haddii masalanba warqad la qoraayo warqadaas waxaa weeye shaabadaa la saaraa marka haddii la ducaysto ducadaas markaasi waxaa weeye shaabadeedii ayay noqonaysaa oo markaasi qurxinaysay asar kale waxaa soo aroortay aamiintaanu waa darajo oo jannada dhexdeeda ah sayidina abubakara waxau dhahay waa xaraf oo marka qofka qaari ah oo akhriya oo aamiin yidhaahdo loogu qoraayo darajo oo jannada ah dhinka ahlu siirada ah oo la yidhaahdo wahab ibnu munabbih waxau dhahay aamiintu waa 4 xaraf xaraf kasta ilaahay waxau ka abuurayaa malag ayuu ka abuurayaa malagaasu marka wuxuu leeyahay allaahuma kfir likulli man qaala aamiin ilaahay u dhaaf dembiga qof kastoo aamiin dhahay
marka aamiin saas weeyo quraanka kamid maahan sidaan hore soo sheegnay faatixadana kamid maahan oo markaas la isdheey maayo faatixada ayay qayb kamid ay tahay faatixada waxa markaasi bacdigeeda aamiin loo leeyahay waa ducadaas duca kasta oo la ducaysanayane oo masalan ba waxa weeye qofku qeyrkiisa duu duceynayo oo jamac lagu duceysanayo qof uu kaligiis duceynayo oo ducada laga dhageysanayane inta kalantood aamiin ayay leedahay oo ilaahay waxaas aan ka baryayno na ajiib waaye markaas marka sidaas ayay waxa weeye aamiintu ay u khayr badan tahay xagga xukunkeeda quraanka kamid miya masa kamid maahan faatixada bacdigeeda maxay ku timidane waxa weeye sidaas ay noqonaysaa waxa hadda markaasi aanu ka soo tagnay maaratay taawudka oo markaasi qabla alqiraa'ah faatixada intaan la akhrin in la leeyahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim laakiin hadii ilaahay yiraahdo waxaan ugu tagi doonaa insha Allah ta'ala suuratu nahl ayaan ugu tagi doonaa meeshaas ayaanu ku bayaani doonaa hadda waxa weeye waxaanu bilaabaynaa suuradii labaad oo quraanka kamida ayaanu bilaabaynaa suuratul baqara ayaa markaasi aanu bilaabaynaa oo markaasi 10 keenan oo 14 oo ka bilaabanaya suuratul baqara ayuu ka bilaabanaya suuratul baqara ayaanu meeshan ka gelaynaa waa suurad oo markaasi suuradihii ugu horeeyay ama suuradii ugu horeysa saan hore soo marnay oo madaniyeed ayay suuradaanu ahayd waa suuradii labaad oo markaasi quraanka kamida suuradaha quraankana suurada ugu dheer waaye suuradan marka suurad kasta oo quraanka kamida waxyaabo khawaas oo gaar ay iska leedahay sheekha la yiraahdo ibn al-arabi waxa uu dhahay suuratul baqara waxa ku jira kun amar ayaa ku jirta awaamir oo kun gaaraysa ayaa ku jirta kun nahyi ayaa ku jira amar lidkiisu nahyi waaye kun xugun ayaa ku jirta kun khabar ayaa ku jirta akhduha barakatun wa tarkuha hasratun suurada marka qaadashadeedu baraka weeyo baraka ku sugan in la akhristo lagu amal falo in laga tagane shalayta ayaa ku sugan la tasdiicu hal badalatu kuwa sixirooyaasha suuradatan suuratul baqara meel lagu akhriyay inay dhibaato gaarsiiyaan oo sixirkoodu uu saameeyo ma awoodi karaan ayuu dhahay إذا قرأت في بيت قرئ هذه الأخرى سورة البقرة لم تدخله مردة الشياطين 3 أيام شياطين تقوى مدح أدق له ومرددة 3 مالموت سوقلي مايان ووحي يوغا نقون إيسا حجاب أيوغا نقون إيسا حديث صحيح مسلم كإمام مسلم أوريي أو صحيحي سأكوري وأبي هريرة لقوري رسول كان هو عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر قريهين هكذا قبورو كله إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة عود رسولك عليه الصلاة والسلام قريهين قبورو كله هكذا هذا معناه ماهن قبورو كله هكذا قبورو وحوي ضدك قلي ضد أموات تكاليف أيها كجورتي وهذا مركز إنه وح أخرسان تعويذات أي سمايان وحكوك أي كوكاليفيهن ما مركز قريهن مقابر أو كلها كدجنا أيوة رسولك عليه الصلاة والسلام قروا قالوا أخرنا أيه سورة البقرة شيطانك وكعرريا إن الشيطان شيطانك يفر وكعرريا من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة قروا مركز لقوا أخرنا سورة البقرة شيطانك وكعرريا روايتك لو حي هذه لكل شيء سنام شيء كسوه له كرس أيو ليه وسنام القرآن ككرس كيسة سورة البقرة وهي روايتك لو حي هذه سيدة آية القرآن آية الكرسي آية ذا قرآنك وحا سيد أحسانك تجدونه آية الكرسي مرك هذا سورة وهي عجيبة يكتها سيد آية القرآن آية ذا قرآنك آية سيدك هو هذه oo ugu fadliga badneeday aayad ahaan markii la yiraahdo suuradatan ay ku jirtaa
ayaduna waxa weeye suuradaha qur-aanka suuradii u weyneed waaye. marka faa'iido fara badan ayaa markaas la soo koobi kan ayaa ku jirta. suurad kasta markii la bilaabayo sida suuratul faatiha inuu ka soo baxnay waxaa la rabaa marka koobaad a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim in lagu bilaabo. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim hadda waxaan u tagi doonaa insha Allah ta'ala suuratu nahl. lafdiga la doortayna waxa weeye in la yiraahdo a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. imaam Maliki iyo Abu Hanifa imaam Shafi'i saas ay qabaan. maxaa yeelay ilaahi waa tow dhahay fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaytaanir rajiim. macnaha waxaa laga wadaa idha aradta qiraa'ata al-qur'ani marka doonayso quraanka inaad akhriso fasta'id billahi minash shaytaanir rajiim. imaam Ahmad ibn Hanbal asagu waxa uu dhahay waxaa haboono dhahay inuu qofku yiraahdo a'uudu billahi as-samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim oo dhaho. وحونا ودها وحو جمعنا يا آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هي آية كلانتيدو فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أهد جمعا بين الآيتين سئو مارتيا أوغا قدقو أيا وحا هبونا ودهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركا أوليهي إنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ساسوله. إمام الثوري إيه إمام الأوزاعي أيق وحي يرادين وحا هبون إنه يراد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم وإنه الله. جمهورته وحي اسكوا أفقسيهين قفك قارئها قرآن كأخرنا آيه صلاة خارج كده هالنقطة أو كبنان كهالنقطة أمس صلاة أساقوا مركزي قدقلا هالنقطة وحال الله صنايا تعود كاس إنه لي ماذا وأنا الصنع واحد وجوب شاقي وحال لقى شاقين شيخ الإيراء عضاء ابن أبي رباح ورقي هذا أنو صامر نيئة مقدمة أنو كسو مري نيئة لكن سيدة راجحة وحاوية والا صنايا إمام النخعي إمام كالإيراء وهو دهي بعد القراءة لا إما هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول كقرآن كالأخرايا لا إمامايه قراءة مركي لما تكبعدي أيالا لا إمانيا ساس وحاقب داود ذاهري إيو لبر رواية دو ابن السيرين أوليه متك مذا أيا ساس قبته أعوذ بالله نوحواي ألتجئ إلى الله إلهي يان مغنقليا وأتحسن به الله أيان كل ورسانيا وحيابها أنك عبسانايو شيطان وحواي أساق أسألكيسو من شدنا أيو كيمدي معناها بعودة وي عن الرحمة شيطانك وحاوي إلهي نحريسيسو كفوغي علماء بعض الوضوحير من شادة أيا لغا سوقاتو بمعنى احترق أهواء قبتيئة إلا شيطان وحاوي واقبان إياه شيطان سيدي سبا وحال إلى اسم لكل عات من الإنس والجن ومتك السؤال مضحك كان oo daacada ilaahay ka baxay oo jinni la oo insi la ayaaba shaydaanka la dhahaa min ash-shaytaan ar-rajiim rajiimtan waxa weeye faciil oo bimaana faacila weeye wa raajim bil waswasati wa sharri dadka qalbigooda ayuu waxa ku garaacaya waswaas iyo shar ayuu ku garaacaya rajiimtan bimaana mafcuulna waa naga kartaa marjuum waayo shayaadiinta waata waxa weeye shuhubtaas lagu garaacayo markay maqalka inay soo damcaan ay maqalka inay soo dafaan ay damcaan way ama sawa madruud an rahmati naxariis ilaahi ayaa laga buriyay iyo khayraadka ayaa markaas laga dardiyay marka hada xikmada isticaadadu waa tadhiirul qalbi min kulli shay'in yashghulu an ilaahi ta'ala qalbiga in laga dahira la doonaya shay kasto oo ilaahi subhanahu wa ta'ala daacadiisa ka mashquulinaya maxaa yeelay adoonku markuu ilaahi subhanahu wa ta'ala uu magan galo wuxuu noqonayaa qof qiray ee maaratay ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu u baahan yahay qof qiray ayuu noqonayaa qof alla subhanahu wa ta'ala inuu u baahan yahay oo rabbul izza subhanahu wa ta'ala inuu u baahan yahay qof qiray ayuu noqonayaa hayla shaydaanka
asagoo awood uma laha inuu markaasi uu iska celiyo markaasi wuxuu noqonayaa qof muqir ah oo qirtay in markaasi waxa weeye shaydaanka inuu iska celiyo qof markaasi waxa weeye qirtow noqonayaa qof shaydaanka waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka celiyo qirtay oo caajis inuu caajis yahay oo lucfi uu qabo qirtay ayuu noqonayaa waxau noqonayaa markaasi qof qirtay inuu caajis yahay inuu daciif yahay haddana ictiraafay awoodda subxaanahu wa tacaala uu leeyahay allana inuu qani oo qaadira uu yahay awooddaas qirtay oo madaraadka waxyaabaha dhibkaa ilaahay inuu ka daafaco markaasi qirtay shaydaankuna inuu cadow iska cad uu yahay qirtay ayuu noqonayaa markaasna waxa weeye wuxuu ka gelayaa haddii waxa weeye acuudu billaahi min ashaydaani rajiim uu yidhaahdo oo ilaahay uu ka magan galo wuxuu ka gelaya xisni xasiina ayaa markaas ayuu ka gelayaa bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadihi bidalika alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas muraadka loola jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku cilmi leh muraadka loola jeedo allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku cilmi leh sidaas ayaa markaasaa la leeyahay waayahay marka hadda alif laam miim ayaa suuradda tan lagu bilaabay xuruufta oo markaasi munazalada ah oo ilaahay xaggiisa ka soo degtay oo suuradaha awaa'ilkooda ku jirta waxay gaaraysaa 14 xarafay gaaraysaa 14 kaas xaraf xuruufta xuruuful hijaa'iga nuskooda weeye 28 waaye marka 14 waxay gaaraysaa markaasi xuruuful hijaa'iga nuskooday gaaraysaa waxayna ku qaybsan tahay oo ay ku kala tagsan tahay 29 suuradood ayay ku kala tagsan tahay inta marka alifta lagu bilaabo sida hadda suuradan suuratul baqara oo alif laam miim aan leenahay oo alif iyo laam inta lagu bilaabaan dhihi lahay waxay gaarayaan 13 suuradood waaye inta xa'da lagu bilaabo iyo miimka sida xaamiim 7 gaarayaan 7 xaamiima la yiraahdo daa inta lagu bilaabo waxay gaarayaan 4 gaarayaan kaafta inta lagu bilaabo waa hal kaliya kaafa ya ayn saad aan ku tagi doonaa baada inta lagu bilaabo waxa weeye hal xabo waaye saad inta lagu bilaabo hal xabo weeye qaaf inta lagu bilaabo hal xabo weeye nuun inta lagu bilaabo hal xabo weeye xuruuftan markaasi bacdi kamida waa uxaadi sida hadda nuun iyo qaaf oo kalentood qaar sunaa'i waaye oo 2 xabo weeye qaar sulaasi waaye waa 3 qaar rubaaci waaye oo waa 4 qaar khumaasi waaye oo waa 5 intaasna kama ziyaasana inta ugu badan waxa weeye 5 ay gaarayaan sida kaafa ya ayn saad waxa waaye khumaasi waaye khumaasigaas u badan wax sudaasi leeyahay kuma jiraan marka hadda xuruuftaana waxa salafu saalix ay ku dhaafeen in sidaas la yiraahdo oo macnahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala loo bandhigo sidaas ayaana aslam ah maxaa yeelay shay luqada carbeed lagu yaqaanana ma ahayn shay iyagoo sidaasana rasuulku calayhi salaatu salaam oo fasiray ee fasirkiisa laga ogaaday ma ahan waxay kamid yihiin markaasi mutashaabiha ayay kamid yihiin jaryan calaa madhabil salaf ayadoo markaasi lagu dureerinayo oo dhahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa cilmigooda la khaas saas marka haddii qowlkaas la qabto falaa maxalla laha min al-i'raabi i'raabta maxal kuma lah saasaa markaasaa la leeyahay hadda waa jira dad markaasi wax ta'wiiliyeyo waxyaabo badan oo aqwaal fara badan oon ayaga laftirkooda aan iswaafaqsanayn oo qolo walba ay wax tiri waa jirtaa oo qaar culimada waxay yiraahdaan asmaa li suwar way suuradaha magacay iska leeyihiin waaye oo lagu bilaabayo qaar waa asmaa lil quraan ay dhaheen magac quraanku leeyahay qaar waxay yiraahdaan maartay asmaa ilaahi leeyahay waaye qaar waxay yiraahdaan xaraf kasto kamida wuxuu miftaax u yahay asmaada ilaahi oo fura u yahay oo mesela hadda alifto kalentood lafdi dhul jalaalaha allah ayay markaasay miftaax u tahay laamtuna waxay miftaax u tahay
اسمك لطيف ميمتنا وحي مفتاح وتاي فرؤتاي اسمه مجيد وهكذا ساس يراهدي marka hadii la tiri karo aqwaasha markaas ka jirtaahu aadi u tira badan tahay laakiin waxa weeye sidaan uga gaabsanayno aslamka ah waa inaan dhahno Allahu a'lam bi muradihi bidalika Ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa muraadka loola jeedo Allah subhanahu wa ta'ala ayaa og marka insha Allah ta'ala waxaanu ku bilaabi doonaa suurada tan 10keena soo socda asayeeshada 10keeni oo nubdadii dhaleedo aamiinta iyo inta kale todo suurada ku tacalluqaysay intaas ayuu noogu egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in bismillahir rahmanir rahim alif lam mim